iyadoo maanta magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ay soo buux dhaafiyeen dalxiisayaal tiro badan oo ka kala imanaya gobolada Soomaaliland iyo dalalka caalamkaba oo soo dalxiis imanaya badda Batalaale ayaa taliyaha guud ee ciidanka xeebaha Soomaaliland Admiral Xuseen Maxamed Faarax Xiirane oo wareysi gaar ah xeebta Batalaale ku siinay TV-ga caalamiga oo Cable TV ayaa wuxuu baaq u diray waalidiinta dhalay dhalinyarada dalxiiska oo yimi magaalada Berbera isagoo sidoo kale dhalinyarada uga digay in xiliyadan ay kacsan tahay baddu waxa weeye waa maalintii labaad ciidka shalay baddu way fiicneed oo waxa weeye way radigneed laakiin maanta aad bay u kacsan tahay waxa isugu yimi dadweyne fara badan bay isugu yimi annagoo ka howlgalaynaa annaga Bileyska ayna ay dhulka joogaan annaga aanu joogno badda aragtaa laba dooniyad baa keenay shalay maantaba waxaan ilaalinaynaa inay dhalinyaradaasi baddu la tagto fogaadaan ilaa ay ka tageen laba dooniyad ku jirayaan oo waxay ilaalinayaan inaanay khasaare waayo carruurtu farxad bay ka timi gurgoodii inaanay la tagin ilaah baa ilaaliyay wax ma taqaan naxdina waalidkeen kula noqon insha Allah maanta way dhamaanaysaa intaana way ilaalinaynaa baduna xoog way ku xasantay waxaan aad iyo aad dhalinyarada ugu talinayaa iyo waalidka soo dirayba war bariyahan baddu way kacsan tahay badda ha laga joogo dadku waxa maqlaan baaq baan ka diraya waxaan leeyahay oo midiga marinaya oo nagu qasbay inuu hadallo war badda yaan la gelin baddu way kacsan tahay waxaan leeyahay hooyooyinkii waalidka soo diraya iyo aabayaasha caruurtina cishada waxa weeye maalmo badan baa haray maalmii qaar baa dambeeya ciid ku qasab maayn badda la galo mar haddii baddu kacsanta in la galo maaha waxaan idinka digayaa war badda ha laga baxo shalay maanta waa lahayn insha Allah iyadoo degan baad imanaysaan dhalinyarada waxaan leeyahay xoogii soo socday baatiin wax maqla war badda ha laga baxo Sadiq Arab Saleeban telefishinka caalamiga oo Cable TV magaalada Berbera adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida